nooca lagaaga baahan yahay gadatid computer-ka gadanaysa waxa la rabtaa inaad ka taxadirtid luqadaha hadda AI-gan ama artificial intelligence adduunku war hayo dhan waa beginner friendly waa mid qofka asaaska oo bilowga ah u roon sida iska kaashadeen jaamacadda MIT iyo Harvard markii koowaad ka bacdina jaamacado badan oo America iyo Aasiya iyo Yurub ku yaala ay aqoontooda ku soo kordhiyeen السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب قيمة هي قاية مدن وإلى الصعدة برها بالشدة فيسبوك يوتيوب أدبين السلامية لما أنتين أنا دوعنتين ونكستين براتشين إن شاء الله وحاجرت لني ربضا أو مربا إلى سحرتها أو ويديي كانالله أما ويب سايتس لقى بران كرو علوم تقيبة ذيك الدون خاصة موضوعنا بدنا كهذا التكنولوجيا سؤالها كأرضي بدن باجرته أو ذلك يجوديه يدبدي سبب كبرته programming-ka ama si guud culumta science-ka computer-ka hadday noqoto code samayn hadday noqoto website samayn iyo macluumaad guud sidoodaba marka waxaan idin la wadaagayaa dhowr website oo aad u kooban 3 ilaa 4 website oo aad u badnayn intaas bilaabinse waxaan jeclaan lahaa inaan ku hormaro aqoonta horta sideeduba waaga hore waxa la tagi jiray xalqooyinka culumta la tagi jiray oo dugsiyada masaajidda meelaha dadku isugu imaadaan majaalista ahlu cilmiga fariistaan ayaa cilumta la isku dhaafsan jiray ka bacdi waxa loo gudbay iskuuladii jaamacadaha soo baxay culumta mucaasirka maanta modernka ama casriga ah ayaa loo gudbay hase yeeshee waxa moodaa wali dadku inay wali qaarkood taas ku dhagan yihiin ayadoo haddana habeen madow oo cilmiga isbedelay oo hadda culumta loo raray online oo hadda waxa dhici karta jaamacadaada ama beledka aad ku nooshahay culumta laga helaya ama aqoonta aad ka helaysid in ka badan inaad aaladaha yararka gacanta kugu jira taleefankaaga iyo computer-kaaga aad ka heli kartid culumta furaha badan maanta waa hanti ma guurta weeyaan hanti walba oo taala waxay u baahan tahay fure maanta bakhaar dahab ku jira hadii uu ka soo orbaxo maaha inuu iska furan yahay qofkii lahaa inaad u martid inuu hiba kugu soo galo oo furiis lagu wareejiyo furad u baahan tahay marka maanta website idin la wadaagayo dabcan 100% kulligood English ku qoran yihiin sidaas darteed marka ugu horeysa waxaan ku bilaabaynaa website-kan loo yaqaan Duolingo waa website iska kooban inkastoo application-aan ku fiican yahay telephone application-aan looga helo waa website ugu horeeya ama application ugu weyn adduunka ama hogaaminaya luqadaha laga barto sida luqada English oo kale asalkiisa waxa sameeyay arday ajnabi marka ku leeyahay yani Mareykan buu jooga markuu sameeyo tan American muusan ahayn dal Guatemala la dhaho oo Latin America ku yaalo ka soo jeeday Mareykanka markuu tagay oo uu arkay ardada kale la jaalka oo mataqaana asalkooda sidoo kale aysan luqada English ku aysan ahayn luqadooda hooyo ayuu wuxuu arkay in baahi ay jirto noocaas oo ay tahay laga maarmaan ay tahay goob dadku wax ka baran karaan oo luqadan ku horumarin karaan inay mataqaana ay fiicnaan lahayd sababta wuxuu horumariyay barnaamijkan loo yaqaan Duolingo marka website-kan waa kan ugu horeeya oo horta idin la wadaagayo maadaama aan idin website soo socdo kulligood English ku qoran yihiin luqadad ku baranaysiina furaheedu waa labad waxa laga yaabaa inaad tahay arday maanta rabitaan ku jiro wax badan rabo inuu barto wax badan inuu korsado rabo laakiin haddana luqadii furaheeda aad garanayn runtii kugu adkaanaysa marka labada inaad Carabi ama English ama luqad kale maanta luqadaha culumta maanta ku qoran yihiin ay ku qoran tahay labada wayna taqaanid aan u gudbinaa warka sida idin sheegay awalan waxaan ku bilaabayaa maadaama aan ila luqad English ka 100% wada English maahan ninka ugu horeeyaan ku bilaabi doono waxa la yiraahdaa Mr Engineer Mohammed waa engineer Soomaali ah waqtigan aan baranayay HTML-ka ama web development asaaska markaan baranayay waan xasuustaa markaas asagoo waayahaas bilaabay baan la jaan qaadayay hadda muuqaaladan waxay ku qoran yihiin af Soomaali engineer Soomaali sameeyay waliba waxa way HTML oo ah luqadaha ugu hooseeya lama dhiran karo luqad programming language weeye waa hypertext waa luqad iska basic ah oo wax lagu qori karo weeyaan responsive aan ahayn oo dabcan yani algorithm 100% yani qofka maanta saad Facebook oo kale ama markaan YouTube oo kale markaad refresh sameeyay page had wax cusub ku soo baxayo dabcan luqadtaas lagu qori karo maahan wax markaan waraaqa ku qortay oo kale hal mar qortay oo meeshiisa joogay oo kale uga xisaabtamaysa page kan ugu horeeya hadda aad ku baartid af Soomaali ahaan ku baartid aqoon kaal hadda YouTube ku baartid wax ugu horeeya waa page ugu horeeya ku soo baxaya weeyaan marka waxaan oran lahaa xitaa hadii inta luqad dhinaca kale ka baranaysid hadii aad luqad Ingiriiska aqoon ama sida aan ku sheegay aad ka sii faa'iideysan karin waa mid aad ku bilaabi kartid wadax ka sii kororsan kartid bal
asaaska HTML-ka iyo CSS oo ah labada aaladooda ugu horeeya website lagu dhiso aad si fiican uga sii baran kartid xitaa wuxuu leeyahay website kale uu leeyahay oo aqoonka.com la yiraahdo macluumaad guud oo computer nooca lagaaga baahan yahay gadatid computer marka gadanaysa waxa la rabtaa inaad ka taxadirtid website meel ugu fiican laga soo gato macluumaadkaas oo fara badan aad ka helaysid waa aqoonyahan Soomaali ah aniga waqti waan ka soo kororsaday baa jirta bariyahan dambe aad update uma ahan laakiinse hadii inta ku jirta aadan aqoon u lahayn inaad inta yarta qodatid baa laftiga runtii jaran dheer ku soo dhaafsiinaysa kaasna waa mid koodan ku bilaabayo website ka xiga freecodecamp baa la yiraahdaa waa free dhammaan aqoonta ku jirto dhan waa free sida magaciisa ka garanaysaana waa free code yani coding free aba lagu siinayaa wuxuu leeyahay ilaa 2014 arday ka qalin jabisay ayaa ka kala shaqeeya shirkadaha Apple, Google, Microsoft, Spotify, Amazon iyo kuwa badan oo lamid ah halkan arday badan oo ka qalin jabisay ayaa oo shirkado kala shaqeeyo noo tusaya macluumaadka culumta aad ka baran kartid oo tiknoolajiyada quseyn halkan kaaga muuqdaan web design ka hadaan ka hadlayna ugu horeeya JavaScript SOAD all this mataqaana macluumaadka machine learning oo hadda mataqaana luqadaha maanta hadda AI-gan ama artificial intelligence adduunku warhayo dhan culumta ku dhisantay ah baad ka heli kartaan waa degdegayaa waa kasii gudbaya ku sii daahimaya webka ku xiga waxa la yiraahdaa Code Academy sidoo kalena waa isla magaci code ba ku jira academy-da code-ka wayaan luqadaha culumta aad ka baran karto waxa kamid HTML tii hadda ka soo hadlaynay oo master engineer Maxamed aan oranayay aqoon kaal engineer ka dambeeya buu idin dhigay oranayay aad English meesha ku jirta waa 6 lesson waa beginner friendly waa mid qofka asaaska oo bilowga ah u roon oo qof la jaan qaadi karo weeyaan waxa halkan ka aragnaa sidoo kale intro to ChatGPT oo ognahay maantay sida loogu hadalhay inta badan yahay barnaamij maadaama uu yahay sida loo adeegsado ku barayaan already koorsooyin baa laga sameeyay waa website kalaas runtii aan is oranay waxaad ka kororsan kartaan website ka xiga waxa la yiraahdaa W3 Schools baa la yiraahdaa sidoo kale asna waa website-da ugu caansan oo HTML-ka iyo web development-ga iyo wixii lamid ah aad ka baran kartaan su'aalahan oo kala meesha HTML ay saaran CSS HTML-ka waa qalfoofta CSS-na waa naqshadaynta qurqurxinta weeyaan JavaScript iyo wax kuwa badan oo lamid hatta hoos hadaan u degno hayn tomaneeyo culum iyo tiknoolajiyad kala duwan ah ayuu halkan ku soo bandhigayaa oo is oranayo waxaad ka kororsan kartaan qodooda taasna waa web kale saddexda web hadda idin soo sheegay oo hadda ugu horeeyay Free Code Academy iyo W3 Schools waa kuwa laga baran karo programming-ka iyo culumta qaybiska kala duwan website-ka xiga oo Udemy la yiraahdo asagna dhanka kale waa website koorsooyinka lacag weeyaan dhowr xabo free oo ku jiraan koorsa dunta gadanaysa hadda sida halkan ka muuqato sidoo kale si loo barta Python oo kuleeyahay Python dhameystiran machine learning aqoonta dunta u baahan tahay ka helisa asagna sidoo kale waa website kale runtii aad muhiim ah kan ugu dambeeyo aan idinku xijinayo waxa weeyaan edX waa website iska kaashadeen jaamacadda MIT iyo Harvard markii koowaad ka bacdina jaamacado badan oo America iyo Aasiya iyo Yurub ku yaala ay aqoontada ku soo kordhiyeen bal waxa helaysaa koorsooyin jaamacadaha ka baxay oo arday maanta dunida ku kala nool duruus ay qaateen oo waxaad helaysaan si free halkan lagu soo bandhigayo marka website-ka marka ay bilaabayeen koodu hore duruusta dhan free bay ahaayeen macal shahaado free bay ahayd hadda waxa weeye darsiga waa qaadan kartaa waa free waa dhigan kartaa waa xaadiri kartaa waxa dhan dhamaysanaysaa haddii aad rabtid inaad imtixaan gashid oo shahaado ku siiyaan lacag gudna ka qaadayaan hadba koorsada ku xirantaa $30 ilaa $100 ilaa $200 qaarkood ba ku jira xitaa koorsooyin waxa ku jira dhameystiran oo su'aalahan oo kale bachelor degree يعني 4 سنة علوم أتك قادنا جامعة بحال جايبة إنك كلها سنة بنكو قصينا ولو شعب مقع له أتك قادت بعض لجيابة أو لعق طبعا كقادن لعقت من كلام فيرينا لعقت أردو شعب توصل قد جنسو أي كير طيب أنت سنكسو كوبيا ما بدينا يو وحرتشين يعني تحكي فعيدا هدي أدوارك تمد فائدة وحتشعلها أصحابتين ينفس الدين من تكون تاسكو بورسان ومحمد أزهري صارك ما قدم حساب بدن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته